Barofesor jaamacad macalin ka ahaa ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo galay fasalkiisa isagoo gacanta ku haya galaas dhala ka samaysan oo ay ku jiraan xoogaa yar oo biyo ah. Gacantii uu galaaska ku hayay ayuu kor u taagay si ardayda dhan ay u wada arkaan, wuxuuna weydiiyey culayska ama miisaanka galaaska inta uu yahay. 50 garaam, waa 100 garaam, waa 25 garaam, ayay ardayda qaar ka mid ah ku jawaabeen. Barofesorkii ayaa yidhi, anigu ma garanayo culayskiisa intuu yahay ilaa aan miisaamo ama cabbiro, laakiin su'aashaydu waxay tahay, maxaa dhacaya haddii aan galaaska sidan u hayo dhowr daqiiqadood? Waxba ma dhacayaan, ayay ardaydii ku jawaabeen. Maxaa dhacaya haddii aan sidan u hayo muddo 1 saac? Gacantaada ayaa waxay bilaabaysaa inay ku xanuunto. Sidaa waxaa ku jawaabay mid ka mid ah ardayda. Barofesorkii ayaa yidhi, waa runtaa, balse ka warama haddii aan hal maalin saas u haya galaaska? Wiil ardayda ka mid ah ayaa ugu jawaabay, markaas xaaladaada halis ayay noqonaysaa, waayo murqaha ayaa ku xanuunaya, seedaha ayaa ku go'aya, waxaana suuragal ah in gacanta ay ku qalasho ama paralyze ku noqoto. Xaaladaas iyada ahna waxaa lagama maarmaan ah in isbitaal lagu geeyo. Hagaag, waxaad ogtihiin intaasoo marxaladood galaaska miisaankiisu muusan isbedelin. Haddaba maxaa xanuunka keenay? Ayuu yidhi barofesorkii. Ardaydii ayaa ku wareeray jawaabta, wayna aamuseen. Okay, hadda maxaan sameeyaa si aan xanuunkaas isaga ilaaliyo? Ayuu ugu dambayn weydiiyey. Gabar ardayda ka mid ah ayaa tiri, galaaska iska dhig. Barofesorkii ayaa ku yidhi, gabadhii waad asiibtay. Dhibaatooyinka nolosha waa sidaas oo kale. Haddii mushkilad yar aad la kulanto oo aad xoogaa maskaxda ku hayso, waa caadi, balse haddii aad ka fikirto oo aad maskaxda ku celceliso, waxaa dhacaya in maskaxda iyo madaxa dhan ay ku xanuunaan. Markastoo aad maskaxda ku sii hayso mushkiladdaas, xanuunkana wuu kugu sii badanayaa. Waa muhiim in laga fikiro dhibaatooyinka iyo caqabadaha nolosha, balse waxaa ka muhiimsan inaad meel iska dhigto, iskana ilowdo wixii ku soo maray, oo aad maskaxdaada nafis siiso. Haddii ay mushkilad ku qabato, isku day inaad maskaxdaada ka saarto, kadib horay ayaad uga soconaysaa. Balse haddii aad maanta dhan maskaxda ku hayso, horena uma soconaysid, naftaadana waad dhibaysaa, ayuu yidhi qoraha sheekadan, Bashka MS. Waxaa xaqiiqo ah qof walba oo dunidan saaran in la imtixaamayo, balse qofka muslimka ah si uu uga dabaasho hirarka waqtiga adag waa inuu culeysyada haystaa Rabbi la kaashado oo dhanka Alle u cararaa. Ilaahayna ma dayacayo addoonkiisa u dan sheegtay biidnillaah. Muuqaalkan iyo qisada ku lamaanan aragtidaada ku aadan hoos inoogu reeb, sidoo kale la wadaag walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan oo inoo sheer gareeya.